qisada rasuulka sallallahu wasallam calayh iyo yahuudiga deriska la ahaa nin yahuudi ahaa ayaa deris la ahaa nabigeena suban sallallahu wasallam calayh yahuudigu waxa uu doonayay inuu nabiga calayhi salaatu wasalaam dhib gaarsiiyo hase ahaatee wuxuu ka cabsaday qabashada saxaabada rasuulka calayhi salaatu wasalaam ninkii waxa uu go'aan ku gaaray in markay habeenkii dadku wada seexdaan oo wasakhda iyo waxyaabaha qashinka ku soo daadiyo guriga nabiga calayhi salaatu wasalaam nabiga sallallahu wasallam calayh marka uu arko waa uu qoslayey waanu iska fogeynayey qashinkii wasakhdii uu ku soo daadiyey ninkii yahuudiga ahaa ninkii dhaqankaas kama daalaynin ilaa fadlan walaal haddaad ku faraxsanta ka sheekeynta qisooyinkii macmacanaa ee nabigeena suban sallallahu wasallam calayh muuqaalkan lagsar siina shargaree si u gaaraa muslimiin fara badan oo ay u daysadaan dabeecadihii wanaagsanaa ee nabigeena suban sallallahu wasallam calayh kommentiga qorsalig nabiga intuu ku qoran yahay malaa'igta ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa dembi dhaaf ku dalbaysa oo ilaahay kaaga baryaysa ninkii dhaqankaas kama daalaynin maalintii dambe ayaa uu yahuudiga jiraday xanuun daran ayaa ku dhacay waxa uu ka war helay nabiga calayhi salaatu wasalaam oo albaabka gurigii yahuudiga gargaraacayo soo gelitaana dalbanayo yahuudigii aad ayaa uu isugu naxay isagoo isla maantay kuu dhammaatay waa uuna kaa argudanayaa waa uu idmay inuu soo galo nabiga calayhi salaatu wasalaam nabigeena suban sallallahu calayhi wasallam waxa uu u rajiyey caafimaad yahuudiga ayaa yidhi yaa kuu sheegay inaan jiranahay waxa uu nabiga calayhi salaatu wasalaam ku jawaabay bishaaro 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 dugsiga barashada iyo xifdinta qur'aanka kariimka ah ee daarulqur'aan online waxa uu kuu diyaariyey barashada qur'aanka kariimka hab online ah adigoo jooga gurigaaga goobtaada shaqo inaad barato qur'aanka kariimka ah waxa aanu weynay dhaqankaagii oo ula jeedo qashinkii iyo wasakhdii aad nagu soo daadin jirtay ayaanu weynay cajiib yahuudigu waa uu ooyey halka ayuuna ku qirtay tawxiidka sidiina muslim ku noqday waxa la soo koobi kara maahan dabeecadihii wanaagsanaa ee nabigeenna calayhi salaatu wasalaam marka qisadan aad dhammaysato oo aad dhegaysato muuqaalka laagsaar sheergaree si ay u gaaraan dad badan ee ugu daysadaan nabiga calayhi salaatu wasalaam ajirna aad ugu hesho saliig nebiga yaa lagaa badsanin inta uu salliga nebiga hoos kuugu qoran yahayna ajiri dembidhaf baad ka helaysaa malaa'igta ilaahayna malaa'igturaxmaan dembidhaf bay ilaahay ku weydiinaysaa walaalayaal waxaan dhex joognaa waa masjidka al-anwaar masjidka dhismihiisa wuxuu marayaa gebagabo meelihii ugu dambeeyey waxa hadda dhiman oo masjidka baahidiisa ah waa shamiitadii la goglayey la fidinayey iyo mutuleelkii mutuleel loo baahan yahay masaajidka waxaa ku baxayso 350 mitir oo mutuleel ah waxaan ka haysanaa ilaa 100 mitir waan haysanaa alxamdulilah waxaa noo harsan ama noo dhiman waa 250 mitir shamiitadii lagu mar lahayn waa loo baahan yahay shamiitana waa loo baahan yahay waxaa kaloo masjidka u baahan yahay dartaan albaabada 5 xaba 5 albaab iyo 5 daaqad waa loo baahan yahay inta kale waa diyaar sidoo kale waxaa loo baahan yahay hal kaarka oo jaay ah oo lagu dhisaayo mixraamka iyo minaaradda soconaysa waxaa kaloo loo baahan yahay safiito oo masjidka saa ujeedaanba kor waa laga daboolay safiitadii ayaa maqan lagu xiri lahaa marka insha allah nala socda masjidku mar dhow oo dhammaanaya insha allah intaas keliya oo masjidku u xiran yahay haddii intaas la helo masjidku waa dhammaanaya insha allah tacaala muuqaalka ku xigo waxaan la wadaagi doonaa masjidkii oo dhammaaday iyo duco insha allahu tacaala walaalayaal waad arkaysaan masaajidkiisuu yahay waa dhisan yahay laakiin waxbaa u hadhay ninkii hore u dhiibtayow haddana hawsha sidii u taal waay marka waxaad yeelaysaan soo dhammaystira khayr allah idin siiye wixii aad idinka dhiman soo dhammaystira khayr allah idin siiye awlaaddiinna iyo dadkiinna iyo dunyadiinna allah idinkugu barakeeye aakhirana filjanna adduunya fa nicmata allah idin yeelo